السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cutubka saddexaad ee cilmiga bulshada deegaanka. Casharka koowaad halka Soomaaliya kaga taalo Geeska Afrika. Dalkeena Soomaaliya waxa uu ku yaalaa Geeska Afrika, waxa uuna dhinaca waqooyi xuduudka la leeyahay gacanka Cadmeed iyo Djibouti, dhinaca koonfureedna Kenya, dhinaca galbeedna Itoobiya, dhinaca barina Badweynta Hindiya. guud ahaan baaxadda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa 637,657 kiiloomitir iskuweer. dalkeena Soomaaliya waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer Afrika. Cimilada Soomaaliya sanadka oo dhan waa kuleyl aan darnayn. Khariidada Soomaaliya ee kor ku sawiran waxa ay muujinaysaa soodimada dalkeena Soomaaliya. barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka badiyo bulaanye waxbartaan barwaaqo gaarane